munaasabad ku saabsan xuska maalinta carruurta ee Afrika oo ku beegan sanad walba 16 Juun ayaa maanta lagu qabtay garoonka kubadda gacanta ee magaalada Boorama. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama, ururada wadaniga ee ka shaqeeya daryeelka carruurta, madax dhaqameedyo, ururada haweenka, gudiyada dhawrista carruurta ee xaafadaha magaalada Boorama iyo qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama. qabanqaabada munaasabada maalinta carruurta Afrika ee lagu qabtay magaalada Boorama ayaa waxa isku soo dubariday isla markaasina soo qabanqaabiyay ururka wadaniga Ayoda ee fadhigiisu yahay magaalada Boorama iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, waxaana maalgelisay hay'adda badbaadada carruurta ee Save the Children. munaasabadan ayaa hadal waxa ka jeediyay isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Awdal, Fardowsa Sheekh Saciid, waxaana ka warantay baahida loo qabo daryeelka carruurta naafada ah iyo in wax la baro ubadka yaryar gaar ahaan kuwa lixaadkoodu dhiman yahay. agaasimaha ururka wadaniga ee Ayoda, Siyaad Cumar Cali, ayaa isaguna wuxuu xusay halgudhaga sanadkan inuu yahay inagoo isku duuban aan tallaabo ka qaadno sidii loo caawin lahaa carruurta naafada ah, waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxaa xusid mudan hay'adda Save the Children oo inoo maalgelisay hawshan iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ah leerin kale. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa hogaaminta barnaamijkan maanta Soomaaliland oo ka dhacaya iskale. SAF bay naga maalgelisay, anagoo Ayoodina halka gobolka Awdal baa ka fulinaynaa. marka ujeedada koobaad ee maanta xuskan loogu talagalay waa sidii loo daryeeli lahaa waxaana loogu qaban lahaa carruurta naafada ah. carruurta naafada oo markaa la rabo in xaqooda la daryeelo, in laga ilaaliyo wixii tacadiya, in goobta la ixtiraamo, in dhammaan xuquuqaha leeyihiin oo dhan loo dhammaystiro. marka dhibaatooyinka carruurta naafada haysta way badan yihiin. bulshada dhexdeeda xuquuq fara badan bay kula kulmaan oo ka bilaabanta qoyska ilaa iskuulka ilaa bulshada dhexdeeda. waxaa kaloo dhibaato ku haysa meelaha laga bixiya adeegyada bulshada kala duwan, nasiib looga samaynin habka ugu fudud ee carruurtaasi ku gali karaan, taasina waa dhibaato. waxaa isaguna munaasabadaasi hadal ka jeediyey madaxa waaxda badbaadada carruurta ee hay'adda badbaadada carruurta ee Save the Children ee fadhigeedu yahay Hargeysa, Masar Eric Kista, wuxuuna xusay inuu aad ugu faraxsan yahay kasoo qaybgalka munaasabadan quruxda badan leh ee lagu qabtay maanta magaalada Boorama laguna xusayay xuska maalinta carruurta Afrika. waxaana ka mid ah hadaladiisii. I'm sorry to say this before the drivers. Some of our drivers are so crazy that they don't know how to drive vehicles. أنا وكفر يعني ترى بدل هذا جوته ورتيرك أنا أعتبر ترى ولي توثق هذا اللي هو. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka Awdal oo ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shiida Bile iyo xubno ka socday ururada daryeelka xuquuqda carruurta ee degan magaalada Boorama iyo waxgarad kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xusayay maalinta carruurta Afrika ee lagu qabtay gudaha magaalada Boorama. waxaana tilmaameen sida muhiimka ay u tahay daryeelka iyo xanaaneynta carruurta naafada ah. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socda gudiyada xuquuqda carruurta ee xaafadaha magaalada Boorama iyo xubno ka socda ururada dhawrista xuquuqda carruurta ee ka howlgala gudaha gobolka Awdal. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudiyada dhawrista xuquuqda carruurta ee dugsiyada magaalada Boorama, waxaana ka mid ah hadaladooda. gabagabadii munaasabadan xuska maalinta carruurta Afrika ee ku beegan 16 Juun ayaa qadar sharaf loo sameeyay in ka badan 50 carruur ah oo carruurta darbijiifka ee ku nool gudaha magaalada Boorama, taasoo lagu maamusay xuska maalinta carruurta Afrika ee ku beegan maanta. Haashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.